isticmaala AI marka AI si loo adeegsado hadii aad baratid waxa ku fududaanayso markaasi inaad soo saarto muuqaalo soo jiidasho leh waxa jiro AI loo isticmaalo caption-ka qalka aad u dhiibaysaa kadib wuxuu ku hagaajinaya caption adigoo uusan waqti badan uusan ka lumin sidaas oo kale hadii aad update u tahay waxa fududaanaysa markaasi shaqooyinkaaga inay ku fududaadaan markaasi aad noqoto qof lagu kalsoon yahay oo maanta shaqada loo dhiibo ka soo bixi kara hagaajinta muuqaaladaada waa inaad u isticmaashaa transition qurux badan sound effectyaal soo jiidasho leh waxa kale lagaaga baahan yahay inaad samaysid connections inaad xiriir la samayso dadka editorada creatorska marka dhamaantood markaad connection samaysid oo dadka la xiriirtid ama qof cusub aad baratid qof kale uu ku sii dhiibo sidaas inaad ku hesho fursad shaqo oo markaas shaqo lagu soo bandhigo hebel oo shaqo lagu dhiibo lagu tijaabinayo markaas shaqadaas sideeda hadaad uga soo baxdo markaas waxaad noqonaysaa qof loo baahan yahay mar wali waa inaad samaysaa improvement muuqaalkii maanta hagaajisay waa inuu ka duwanaadaa muuqaalka bari hagaajin doontid mar walba marka sii dambayso muuqaalka waa inuu ka duwanaadaa muuqaaladii hore